filimka waa filim yar oo kooban wuxuuna filimku ka hadlayaa dhaqashada geela iyo saamaynta uu geelu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed wuxuuna filimku muujinayaa qiimaha gaarka ah ee geelu uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed filimkan waa filim waxbarasho waxaana loogu talagalay ardayda dhigata iskuulada dhexe iyo sare gaar ahaan ardayda ku nool wadamada reer galbeedka waxaana filimkan isku soo dubariday oo idin soo diyaariyay Maxamed Xuseen oo macallin ka ah dugsiyada sare ee wadanka Sweden ku soo dhawaada filimka geelu waa xoolaha ugu muhiimsan oo ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed dhaqashada geela dadka Soomaalida ah waxa ay ugu fadhidaa qiimo gaar ah dhaqashada geeluna waxa ay ku habboon tahay dabiicadda dhulka Soomaalida oo ah dhul kulul oo biyuhu ay ku yar yihiin geeluna dabiicad ahaan waxa uu u adkaysan karaa oonka iyo haraadka
wuxuuna geelu biyaha ka qadi karaa muddo dheer. dadka Soomaalida ah waxa ay geela u dhaqdaan in ay ku noolaadaan caanaha geela iyo hilibka geela. geela 24kii saacba waxaa la maali karaa 3 ilaa 4 jeer. dadka geela dhaqa waxaa la yiraahdaa geel jire. caanaha geela waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc. caanaha markaas la soo lisay waxaa la yiraahdaa dhay. caanaha marka la dhigo oo maalin iyo habeen ay yaalaanna caanuhu way dhanaanaadaan, waxaana markaasi loo yaqaanaa maydhanaan. dadka qaarna waxay u yaqaanaan suusac. caanaha geelu waxa ay leeyihiin nafaqooyin iyo macdano fara badan oo jidhka bini'aadanku uu u baahan yahay. sidoo kale caanaha laga liso geela waxaa loo soo beegeeyaa magaalooyinka, taas oo dadka magaalooyinka degan ay cabbaan caano fara badan. halkan waxaad ku arki karaysaan ilmo yar oo markaas dhashay oo wiilka geeljiraha ahi uu kaxaynayo. hashu waxa ay jeceshahay ilmaheeda oo waxa ay ka waardiyeynaysaa inuu wax dhibaataa u geysto wiilka geeljiraha ah. xilliga barwaaqada ah waa xilliga uu geelu tarmo. markaasi awrta geela ku jira ayaa qooqa sida aad ku arkaysaan sawirka. ratiga marka uu qooqan yahay waa khatar oo dadka ayuu waxyeelayn karaa. ratiga markaasi cunto ma cuno, waxaana uu sii daayaa carabka weyn ee doobiga. sidoo kale dadka Soomaaliyeed geela waxa ay u isticmaalaan gaadiid ahaan oo dadku waxa ay rartaan awrta, waxaana awrta lagu raraa hararada iyo teendooyinka iyo alaabada guriga marka dadku ay guurayaan. sidoo kale awrta waa lagu dhaamiyaa, waxaana sidoo kale awrta lagu isticmaalaa in lagu soo iibsado oo lagu soo raro cuntooyinka ay dadka reer baadiyaha ah ka soo iibsanayaan baadiyaha. qaybo fara badan oo geela ah waxaa loo dhoofiyaa waddamada dibadda, waxayna dadka Soomaaliyeed dhoofinta ka helaan lacag adag oo fara badan.